subax wanaagsan ku soo dhawaada qodobada wararka kulmiya saaka kuwooda ugu dooron diyaaradaha Mareykanka oo duqeymo la beegsaday saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo Beerxaana ee gobolka Jubbada Hoose ku dhawaad 70 qof oo Soomaali ah oo lagu dilay dalka Itoobiya qalfadhiga labaad ee xildhibaanada golaha shacabka oo maanta lagu wado in lagu soo xiro magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir oo culimada Soomaaliyeed ugu baaqay in dhalinyarada ay ka wacyigeliyaan fikrada ku racan ee al-shabaab dowladda Soomaaliya oo sheegtay in la xisaabtamayso ciidanka xoogga dalka kadib markii Mareykanku uu ku eedeeyay musuqmaasuqa militariga Soomaaliya Xuutiyiin lagu dilay duqeyn ka dhacday galbeedka Yemen iyo Israa'iil oo toogasho ku dishay 4 qof oo Falastiin ah Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkan u qaad subax wanaagsan mar kale waa subax sabti ah taariikhduna tahay 16 bisha 12 December 2017 warkaas oo dhan waxa diyaar la ah Xasan Maxamed Aweys wad maasantahay calaamad bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada dhageystayaal qodobadaas oo faahfaahsan diyaaradaha Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in duqeymo ay la beegsadeen saldhigga al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Beerxaano ee gobolka Jubbada Hoose wariyahena Maxamed Cabdi Salaan Umar ayaa warkan faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Beerxaano oo dhow magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in xalay fiidkii diyaarado dagaal ay duqeeyeen fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi duqeynta ayaa la sheegay in diyaaraduhu ay la bartilmaameedsadeen saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Beerxaano waxaana dadka deegaanka laga soo xigtay in dhowr gantaal ay ku dhufteen halkaas diyaaradaha wax duqeeyay dhanka kale saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in duqeyntaas lagu dilay 15 dagaalame oo laba ka mid ah yihiin saraakiil sarsare oo xilal ka haya dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka General Ismaaciil Saxardiid ayaa warbaahinta dawladda u sheegay in labada sargaal ee shabaabka ah ay kala ahaayeen madaxa sakawaadka deegaanka Beerxaano iyo amniyaadka deegaankaasi duqeynta diyaaradaha ayaa loo maleynayaa inay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee laga leeyahay waddanka Mareykanka mana jirto wax war ah oo ka soo baxay dawladda Mareykanka ee ku aadan duqeynta xali ka dhacday deegaanka Beerxaano ee gobolka Jubbada Hoose bilii ugu dambeeyay ayaa diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka laga leeyahay waxay duqeymo ay ka fuliyeen deegaano ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya kuwa oo ay la bartilmaameedsadeen al-shabaab iyo kooxda Daacish ee Soomaaliya ku sugan ku dhawaad 70 qof oo Soomaali ah ayaa lagu dilay dalka Itoobiya rabshadaha gacanka hadalka ee u dhaxeeya Soomaalida iyo sidoo kale qaramada ka oo ka dhacaya gobolka Oromiya sidoo kale Itoobiya waxa ay mamnuucday barihii bulshada iyadoo rabshaduhu ay iska sii tirayaan Maxamed Bootaan Yuusuf ayaa warkan faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya deegaano ka mid ah ismaamulka Oromada ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in dad Soomaali ah oo tiradoodu ay gaarayso 65 qof lagu dilay tuulada Gadulle ee hoostagta degmada Durulow saraakiil u hadlay ciidamada Oromada ayaa sheegay in weerarku uu bilowday kadib markii dad Soomaali ah ay dileen askari ka tirsan Oromada mid ka mid ah Soomaalida ku nool deegaanka uu weerarku ka dhacay oo la hadlay VOA ayaa sheegay in dadka la dilay ay gaarayaan 65 qof oo Soomaali ah kuwaas oo ku jiray hal guri oo ay ku go'doonsanaayeen wuxuu dhacay bishii bini'aadamka lagu arago isgoona meesha ka dhacdayna waa gobolka degmada Daarolabu degmada Gaadilaadeeyaan kaaroortii ilaa baare afartii xagga naga deesan maqan xagga inay 10 taan u malaynay afartii saac kalaaba
xidhnaa ilaa odagu bilku dhawaada dadkan meesha ku xidhnaa 65 ruuxii dad la soo habeeyo ciidamada gobolka eega aan joognaa oromia ciidamadeeda iyo dad dhalinyaro oo seefafo iyo manjo wato baaroodkii soo galay meel guri ay ku jireen oo guri hooyada layaa xadra neefeeda bay ahayd dadkii manjo iyo waxaa lala galay uun seefaba sidii loogu waday aniguna waxaan sudi ku jiray 65 ruux qofay ku dhinteen dhulka ay wada degaan oromada iyo soomaalida waddanka Itoobiya ayaa dhowr jeer waxaa ka dhacay dagaal dad badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen horey dowladda federaalka Itoobiya waxay u sheegtay inay xakameysay isku dhacyadii dhexmaray qowmiyadda oromada iyo soomaalida Itoobiya oo dhowr jeer wada dagaalamay hayeeshee isku dhacaani soo cusboonaaday ayaa dadka soomaalida ee ku nool Itoobiya waxa ay sheegeen inay qabaan walwal ah in la beegsado maadaama rabshaduhu ay hadda xoogeysteen fadhiga labaad ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta lagu wadaa in la soo xiro waryahana Cabdiwahaab Xuseen Muxiidiin ayaa faahfaahinaya kalfadhiga labaad ee xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo 8 bishii Julaay ee sanadkan uu furay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in maanta oo Sabti la soo xiro sida qaar ka mid ah xildhibaanada ay idaacadda kulmiye u sheegeen xafiiska warfaafinta ee golaha shacabka oo wariyaasha ku wargeliyay xildhibaanada golaha shacabka ayaa intii kala fadhigan uu furnaa waxa ay meel mariyeen sharciga boostada iyo isgaarsiinta halka dhowr sharci ee kale iyaguna akhrinta labaad iyo akhrinta koobaad intaba ay marayaan waxaana sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maanta hortagi doono guddiga isku dhafka ee loo xilsaaray dib u eegista dastuurka kaas oo ka kooban xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya aqalka sare iyo golaha shacabka kaas oo warbixin laga sugayo isla markaana guddoonku uu horay u amray inay hor keenaan la filayo in maanta oo kulankii ugu dambeeyay xildhibaanadu ay yeelanayaan uu horgeeyo sidoo kale kalfadhigan la soo xirayo ayaa waxaa la sheegay in xildhibaanada qaarkood ay jiraan iyaga oo aan ka soo qayb gelin intii uu furnaa ama kulamo 2 kulan iyo 3 kulan wax aan ka badnayn ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Banaadir ayaa culimada Soomaaliyeed ugu baaqay in dhalinyarada ay ka wacyigeliyaan fikirka guracan ee Al-Shabaab Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo haya gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed mar uu la hadlay warbaahinta ayuu ka dalbaday culimada Soomaaliyeed imaamyada masaajidada iyo waliba macallimiinta dugsi quraanada ee ku yaala magaalada Muqdisho inay u istaagaan la dagaalanka afkaarta guracan ee Al-Shabaab kaasoo ay ku marxabaabinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay gudoomiye Taabid ayaa sheegay inay ka doonayaan culimada Soomaaliyeed macallimiinta dugsi quraanada iyo waliba imaamyada masaajidada inay u diyaar garoobaan dagaal la gal Al-Shabaab maadaama uu yiri ay ku dhameynayaan shacabka Soomaaliyeed masuubadii soobe oo kale isla markaana ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab kaas oo ay ku dhawaaqday dowladda Soomaaliya goor hore haddiina intaas sameeyeen buu yiri ay sii dhameynayaan shabaabku shacabka Soomaaliyeed culimada iyo macallimiinta halkan isugu timid wax badan oo dardaarana dadkii lahaa waa idinka dadka waaniya hababiya tarbiyeeya waa idinka laakiin maanta waxaa timid nidaam cusub oo u baahan la dagaalan afkaar diineed in aan sameeyno waan inaan isku kaashanaa degmo walba aad ka socotaan gobolka Banaadir waxaan hubaa maalin walbo dib oo qolada geystaan ayaa mid un soo wajo waan wada xasuusanaa 14 Oktoobar dhibtii nagu dhacday waan ognahay guri walba inay gilgishay jawaabta aan ka bixinayna midda ugu wanaagsan ee laga bixiyo waa midda diiniga ee loo diyaar garoobay sida lagu la dagaalami lahaa afkaarta maxaan aamusanay baqdinta qofka galaysa maxay tahay qofka dariiqa Ilaahay ku taagnaa ee waxa ugu khayrka badnaa bulshada barayay og xasanaadka Ilaahay agtii u yaalo haddii uu ka hadlo oo uu u diyaar garoobo inuu istaago degmadaas inuu ka samata bixiyo dhibka uu ku jiro oo qofkaas isagoo intaa wada dhibka uu ku gaaro imisa wanaag ayaa Ilaahay agtii u yaalo inaan bulshadeena maanta kadib u istaagno inaan si dhab ah uga baraarujino afkaartan qaldan ee lagu luminayo oo aan qayb ka qaadano qofka afkaartaas qaldan qofka wada qofka inta kadiga ama hay'adaha amniga u sheego ummadaas waxa uu ka badbaadiyay xasanaadka ay leedahay lacagta culimada Soomaaliyeed ayaa dhowr jeer hore waxaa laga dalbaday shacabka Soomaaliyeed ay ku wacyigeliyaan afkaarta Al-Shabaab iyo inaanan dhalinyarada ku biirin Al-Shabaab hayeeshee kuwa ku jirana looga baahan yahay inay ka wacyigeliyaan inay iskaga soo baxaan Al-Shabaab si shacabkooda iyo heladooda ay u midoobaan dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xoojinayso la xisaabtanka ciidanka xoogga kadib markii ay Mareykanku ku eedeysay inuu musuqmaasuq uu ku dhex jiro Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya
war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay xoojinayso isla markaana abuurayso isla xisaabtan ku aadan ciidamada xoogga dalka iyo hay-adaha maaliyadda. Dowladda federaalka ah Soomaaliya oo in muddo ah wada isla xisaabtankan hay-adaha dowladda si loola dagaallamo musuqmaasuqa ayaa bilowday daraasad lagu hubinayo tirada ciidamada iyo bixinta mushaaraadka si ciidanka loogu dhiirageliyo dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah ayaa war-saxaafadeedka lagu yiri. Dowladda ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka waxa ay ku sheegtay in la hakinayo gargaarka dowladda Mareykanka ay siiso ciidamada militariga ah ee Soomaaliya. Maadaama ay socoto daraasad lagu qiimeynayo awoodda ciidanka ayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka waxay isla garteen in muddo kooban la hakiyo taageerada cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka si dib u qaabeyn loogu sameeyo gargaarka amniga ayaa war-saxaafadeedka sidoo kale lagu sheegay. War-saxaafadeedka ayaa waxaa sidoo kale ku qornaa oo dowladda ay ku xustay hakinta waxa ay salka ku haysaa kadib markii ay dowladda Mareykanka soo dirtay guddi baaris ku sameeya meelaha lagu bixiyo kaalmada Mareykanku siiyo ciidamada bishii May ee sanadkan si dib u habeyn loogu sameeyo hannaanka loo caawiyo ciidamada iyo in la xaqiijiyo in kaalmada loogu talagalay ciidamadeenna ay gaaraan meelaha loo qoondeeyey. Guddigaas waxa ay daba socdeen in ay xaqiijiyaan sidii loo isticmaalay kaalmada ay Mareykanku bixiyaan dhowrkii sano ee u dambeeyey ayaa war-saxaafadeedka lagu xusay sidoo kale. mahadsanid cabdiqani weli waxaa naga dhagaysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wararkii caalamka ayaa inoo soo socda. duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr jabuuti u doono saraakiil caafimaad iyo kuwo militari ayaa sheegay in 28 fallaagada xuutiyiinta waddanka Yemen lagu dilay dhinaca galbeed ee waddankaasi Yemen halkaasi oo la sheegay in ay maamulayaan fallaagada duqeyn ay sameeyeen diyaaradaha dagaalka ee Sacuudiga uu horboodayo. ilaa iyo 5 magaalo ayaa la bartilmaameedsaday labadii maalmood ee Jimcihii iyo Khamiisii halkaasi oo dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka sameynayeen kooxda xuutiyiinta waddanka Yemen. saraakiisha caafimaadka ayaa tilmaamaya in 28 fallaagada ah duqeynta lagu dilay. dhaawac waa 17 qof sida ay xaqiijiyeen. deegaanka Bayhan oo ka tirsan gobolka Shabwa ee dalkaasi Yemen ayaa la tilmaamay in saldhig muhiima uu yahay xuutiyiinta waddanka Yemen ka dagaalamaysa. ugu dambeyntii Israel waxa ay toogatay 4 qof oo Falastiiniyiin ah oo iyagu ka dibad baxayay go'aankii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ee caasimadda Qudus inay u noqoto Israel. askarta Israel ayaa la tilmaamay inay toogteen 4 qof oo Falastiiniyiin ah sida ay ku soo waramayaan laamaha caafimaadka ee magaalada Gaza. 160 kale ayaa la tilmaamay oo Falastiiniyiin ah inay ku dhaawacmeen magaalada Qudus dibadbaxyo ka dhacay. Israel waxa ay tilmaantay isku soo baxyo ka dhacay